madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan aqbali doonin in askarta ciidamada AMISOM ay dhibaato u geystaan shacabka. Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay talaabo adag ka qaadi doonto kuwa dhibaateeya shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu ugu digay ciidamada AMISOM inaysan sii wadan dilka shacabka. Ugu dambeyn waxa uu xusay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo nafta shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa noqonay madaxweynihii ugu horeeyay ee si adag ula hadla ciidamada AMISOM kuwaas oo caadaystay inay shacabka jiirsiyaan gaariga ayagoo aanan u joojinayn ay iska sii socdaan. Haddaba hadalladii madaxweynaha waxaa ka mid ahaa runtii wax laga xumaado weeye arrintaas arrin fiican ma aha waana ka hadalnay askarigii fuliyay arrintaasna runtii way ogtiin in la qabtay waxaana aan uga digaynaa qof walba inay ka taxadaraan arrintaan oo kale waa dhici kartaa accident bini aadana la yahay qofku waa ku dhici karaa accident ama shil waa ku dhici karaa laakiin marnaba ma ogolaanayno arrin ku talagal ah marna ma ogolaanayno maxaa yeelay dadkeenu dhiiggiisu iyo naftoodu waa qaali AMISOMna saan ognahay runtii 10 sano nala joogtay iyagu naftoodu ku waayeen kuwa ka mid ah kuwa badan naftoodu ku waayeen inay runtii difaacaan dowladnimada Soomaaliyeed. halka aad nagala socotaan waa Muqdisho Live YouTube. ha ilaawin subscribe waadna mahadsantahay.